wararka laga helay magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose ayaa waxay tilmaamayaan in madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu 5 bisha ilaa 7 bisha tagi doono magaalada Kismaayo. wufuud hordhac waa madaxweyne Farmaajo ayaa 4 ilaa 3 bisha soo socota tagaya magaaladaasi, waxayna tani noqonaysaa dharbaaxo culus oo mar kale ku dhacday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. dadka rogroga arrimaha siyaasadda ayaa aaminsan in tani ay tahay farintii ugu dambeysay oo loo diray madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ku aadan in uusan joojin karin xubnaha mucaaradka ee ku sii qulqulaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. sida ay tilmaamayaan saraakiil aan la hadalnay, xogtu waxay intaa ku dareysaa in 24 saac ee la soo dhaafay si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. dad badan oo arrimaha la socda ayaa aaminsan in madaxweyne Farmaajo uu taga magaalada Kismaayo ay noqon doonto dabcan dharbaaxo weyn oo ku dhacday filla Soomaaliya, waxayna dadka arrimaha la socda sidoo kale leeyihiin madaxweynihii sagaalaad ee Soomaaliya wuxuu gogol xaar u noqon doonaa in xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale Farmaajo uu gooni ah ay ku baratamaan doorashooyinka soo socda. inkastoo Farmaajo uusan qarsan damciisa ku aadan inuu doonayo inuu qabto xilka madaxweynaha Soomaaliya, haddana dadka arrimaha ka faalooda ayaa aaminsan inuu Farmaajo markan haysto taageerayaal fara badan oo isaga u codeyn kara hadiiba dalka doorasho qof iyo cod ah ay ka dhacdo. sidaas si lamid ah toddobaadyadii la soo dhaafay ayaa si weyn loo dareemay dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed ee ka jira magaalada Kismaayo, iyadoo marba marka ka dambeysana la arkayo isbeddello waaweyn oo ka dhacaya Kismaayo iyo sidoo kale deegaanada hoos yimaada oo ku aadan loolanka loogu jiro doorashooyinka madaxtinimada iyo tan baarlamaaniga ah ee la filayo inay ka dhacdo Soomaaliya marka la gaaro 15 May 2026. wararka dhinaca kale laga helayo gobolka Awdal ayaa waxay tilmaamayaan in halkaasi laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u sareeya. maleeshiya taageersan beesha Ciise ayaa la soo warinayaa inay halkaasi ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo sareeya, waxaana laga cabsi qabaa dagaalo ay ku qaadaan maleeshiyaadka beesha Samaroon. daryanka hub culus iyo qaraxyo waaweyn ayaa saaka aroortii horena laga maqlay banaanka tuulada Ceelgaal, halkaasoo la sheegay in ay jirto isku hor imaad dhex maray ciidanka beesha Ciise iyo maleeshiyaad taageersan beesha Samaroon. sidaas la mid ah war kale oo hadda soo baxay wuxuu tilmaamayaa in banaanka xadka ay wadaagaan Awdal iyo sidoo kale dowlad deegaanka Soomaalida ay ku dagaalamayaan maleeshiyaad taageersan beesha Ciise iyo kuwa Itoobiyaan ah, kuwaas oo isooristaa ku sameeyay hub la rabay in la geeyo meelo kamid ah dowlad deegaanka kadibna loo gacan geliyo beesha Ciise. saraakiil aan la hadalnay qaarkood waxay tilmaameen in tani ay tahay dharbaaxadii ugu cusleed ee ku dhacda maamulkan Somaliland, sababtoo ah waxay ku guuldareysteen ayaa la leeyahay xal u helidda colaadaha halkaasi ka taagan. xubna aan la hadalnay qaarkood waxay tilmaameen in toddobaadyadii la soo dhaafay sidaas oo kale ay colaadu jirtay, balse colaadu aysan wax buuran ka ahayn marka la eego xiisadaha Samaroon iyo Ciisaha oo gaaray meeshii ugu sareeyay. dadka ka faalooda arrimahan ayaa sidoo kale ugu baaqaya beelaha Ciise iyo Samaroon inay wada hadal iyo wada xaajood xaaladda ku dhameeyaan oo wixii intaa ka soo haraa aan dhag jalaq loo siinin, lagana wada hadlo qodobada muhiimka ah ee masiirka iyo mustaqbalka taabanaya. dabcan xiisadda Ciisaha iyo Samaroonka ilaa hadda xal looma helin, waxaana sidoo kale jira aragtiyo la xiriira in isku dhacyo ciidan laga cabsi qabo, kuwaasoo la sheegay inay xaaladda dab kale ku sii shidi doonaan. dad kale oo arrimahan ka faalooda sidoo kale waxay leeyihiin waa in si degdeg ah Ciisaha iyo Samaroonku ay u soo gabagabeeyaan colaadda halka ka taagan, iyadoo oo laga fakarayo in halkaasi dagaalo ay ka dhacaan. ugu dambeyntiina wararka laga helayo gobolka Sanaag ayaa waxay tilmaamayaan in banaanka magaalada Ceergaabo goordhow laga maqlay hub aad u fara badan. waa tijaabada hub ay dhawaan soo gateen beesha dhulbahantay, gaar ahaan ciidanka waqooyi bari oo la sheegay in ujeedadoodu ay tahay in ay kula dagaalamaan ciidanka Somaliland gudaha magaalada Ceergaabo. dhaqdhaqaaqyadan dad badan waxay aaminsan yihiin inay yihiin kuwii ugu sareeyay oo xaaladda dab kale ku sii shidi kara haddii aan xal degdeg oo loo helin waxyaabaha la isku hayo oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidi karaan. si walbaba ha ahaatee, dad badan oo arrimahan ka faalooda ayaa aaminsan in xaajadu ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin haddii aan si degdeg ah loo xalin waxyaabaha la isku hayo oo ay dad badan aaminsan yihiin inay xaaladda dab kale ku sii shidi karaan. gudaha saaxiibayaal wararkeen intaas ay ku dhan yihiin.
hadday tahay markii kugu horeysay nagu soo biir oo subscribe channelkan waxaad heli doontaa wararka iyo warbixinada xasaasiga oo mar walba halkan aan ku daabacnay ee soo dhawaada daawadayaal